Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada ku xiran janaalka layaabka media ee YouTube, kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ninka ugu wasakhda badan caalamka. Ka hor inta aanan bilaabin muuqaalkan, fadlan like saar muuqaalka, subscribe na dheh janaalka. Aad ayaad u mahadsan tahay. Qisadeena maanta ayaan kusoo qaadan doonaa ninka ugu wasakhda badan ee caalamka. Sida caadiga ah, haddaanan qubaysanin maalmo, waxaan dareennaa in jir ahaanteena culays zaa'id ah nagu soo siyaado, daal fara badan iyo in kale oo badan. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ninkan lagu magacaabo Amu Haji oo kasoo jeeda waddanka Iiraan. Da'diisa ayaa ah 88 sano. Ninkan ayaa qubaysanin muddo dhan 65 sano. Amu Haji jirkiisa ayaa isku bedelay wasakh iyo dhoobo. Mar ayay dhalinyaro isku dayeen inay ugu qubayaan si free ah, laakiin waa ka cararay dhalinyartii. Amu Haji ayaa ku nool tuulo lagu magacaabo Dejgah, mana haysta wax guri ah. Wuxuu seexdaa godka inoo muuqda. Amu Haji ayaa cunin cunnada fareeshka ah. Wuxuu cunaa cunnooyinka aadka u wasakhaysan. Sidoo kale wuxuu biyaha ka soo cabaa webi aad u wasakh ah. Amu Haji ayaa caba sigaarka, laakiin hal kaliya ma cabo. Wuxuu cabaa halkii mar 5 xabo oo sigaar ah. Alaabaha uu isticmaalo waxaa ka mid ah koofiyadan loo isticmaali jiray dagaaladii hore, wuxuuna isticmaalaa marka qabowga jira kaliya. Amu Haji ayaa ku qanacsan nolosha uu ku nool yahay, maadaama uu la qabsaday nolosha uu ku nool yahay. Run ahaantii aad ayay u culus tahay in lagu noolaado nolosha Amu Haji oo kale. Intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad ka heshay, ilaawin inaad like saarto muuqaalka. Haddii aad ka heshid mowduucyadan oo kale, qaybta commentiga nagula wadaag. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.